subaxnimo wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel kasta oo aad dunida aad ka joogtaan ku soo dhowaada wararka suuqa kala iibsiga ciyaartooyda waxyaabaha ka cusub iyo dabcan sheekooyinka la xiriira dhacdooyinka ciyaaraha aan ku horeeyay kooxda Manchester United ayaa ku fikiraysa in kooxda Arsenal ay ka dulqaado ciyaaryahanka kooxda Bayern Munich ee reer Jarmal Larry Sane waxaana wararku ay sheegayaan in xiddigani 28 jirka ay isku haystaan kooxaha reer England kaasoo heshiiska uu kula joogo kooxda Bayern Munich lagu wado inuu dhaco dhamaadka xilli ciyaareedkan ma jiro dhanka Bayern Munich ilaa iminka wax hadal oo ka soo baxay oo ku aadan qiimaha xiddigan ay suuragal ka tahay inay bisha January ku iibiso kooxda Liverpool ayaa lagu soo waramayaa inay ka fikirayso inay wada hadal ay la gasho 32 jirka ka soo jeeda dalka Masar Mohamed Salah kaasoo looga gacnaatinayo horyaalka dalka Sacuudi Carabiya waxaana wararku ay sheegayaan in labada dhinac haatan ay bilaabeen wadaxaajood ku aadan sii haynta xiddigan reer Masar ee garoonka Anfield kooxda Arsenal ayaa qiimeynaysa xaaladda ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda Real Sociedad ninka la yiraahdo Martin Sambindi waxaana wararku ay sheegayaan inay kala kulmayso dagaal adag kooxda Manchester City oo la doonaysa inay ciyaaryahankani la soo saxiixato ciyaaryahan Sambindi ayaa si uu ku dhawaaday xagaagii hore inuu ku biiro kooxda Liverpool kooxaha dalka Isbaanishka ee Barcelona iyo Real Madrid ayaa isha ku haya dhaqdhaqaaqa ciyaaryahanka kooxda Nottingham Forest ee reer Brazil ee difaaca dhexe ee Murillo 22 jirkan ayay u aragtaa kooxda ka dhisan gobolka Catalonia inuu yahay xiddig anfici kara waxaana haatan ay doonaysaa inay xiddigan la soo saxiixdaan marka la gaaro bisha January inkastoo ay dagaal kala kulmayso kooxda ka dhisan garoonka Santiago ee Real Madrid kooxda Manchester United ayaa qiimeynaysa xaaladda 21 jirka ka soo jeeda dalka Hungary ee difaaca dambe ee kooxda Paris ninka la yiraahdo Milios waxaana haatan kooxda ka dhisan Old Trafford ay ku dadaalaysaa inay xiddigani la soo saxiixdaan marka uu furmo suuqa kala iibsiga ciyaartooyda kooxda Liverpool ayaa lagu soo waramayaa inay doonayso inay u dhaqaaqdo ciyaaryahanka kooxda PSV ninka la yiraahdo Ricardo Pepe waxaana wararku ay sheegayaan in 22 jirkan ka soo jeeda dalka Mareykanka oo si weyn ay diiradda ugu saaran tahay kooxda ka dhisan dalka Ingiriiska ee Liverpool inkastoo ay kala kulmayso tartan adag kooxda Bayern Munich, Borussia Dortmund iyo kooxda Atletico Madrid kooxda Manchester United ayaa sidoo kale lagu soo waramayaa inay isha ku hayso inay u dhaqaaqdo bisha January ciyaaryahanka kooxda Dinamo Zagreb ee ka soo jeeda dalka Croatia ninka la yiraahdo Martin Brunner 22 jirkan ayay u aragtaa inuu yahay xiddig wax weyn ka tari kara qadka dhexe ee kooxda Manchester United waxaana wararku ay sheegayaan in ay kala kulmayso tartan adag kooxda dalka socota dalka Isbaanishka ee Barcelona iyo Atletico Bilbao ciyaaryahanka Garnacho ayaa dalab ka helay kooxda Atletico Madrid ee dalka Isbaanishka kadib markii ay sheegtay inay xiiseynayso ciyaaryahankani dhinaca baalka ka ciyaara waxaana wararku ay tilmaamayaan in kooxda Manchester United ay ka aamustay dalabkan uga yimid kooxda ka socota dalka Isbaanishka Atletico Madrid ayaa dalabka Garnacho ka soo gudbisay uusan ahayn markii ugu horeysay waxaana ay xiddigan uu bartilmaameed u ahaa oo intuusan ku soo biirin kooxdan ka dhisan garoonka Old Trafford kooxda Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay ka fikirayso go'aankeeda ku aadan saxiixa ciyaaryahanka reer England ee kooxda Liverpool Alexander Arnold bisha January waxaana la sheegay inay haatan ay ka fikirayso go'aankeeda ku aadan inay sugto dhamaadka xilli ciyaareedkan uu ku dhacayo heshiiska uu kooxdani kula joogo si ay beeca xurta ula wareegto hase yeeshee kooxda Liverpool ayaa u sheegtay haddii ay doonayso kooxdan Real Madrid saxiixa xiddigan inay miiska saarto lacag 42 milyan oo euro taasoo laga yaabo in kooxda Real Madrid ay hakad u geliso qorshaheeda ku aadan saxiixa xiddigani bisha January ciyaaryahanka Leonardo Trossard ee kooxda Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inuu haatan uu ka fikirayo si uu heshiiska ugu kordhin lahaa kooxdiisa Arsenal kadib markii loo soo bandhigay heshiis kale oo dheeraad ah waxaana wararku ay sheegayaan inuu haatan lagu wado in xiddigan uu heshiis dheer kooxdan Arsenal qalinka ugu duwo ciyaaryahan Trossard heshiiska uu kula joogo kooxda Arsenal wuxuu dhacayaa sanadka 2026 kooxda Tottenham ayaa lagu soo waramayaa inay ka fikirayso bisha January inay lambarka koowaad ka dhigato saxiixa xiddiga Jack Grealish ee kooxda Manchester City
waxaana la sheegay inay kooxdan Tottenham ay u gudbisay dalab ku aadan xiisaha ay xiddigani u hayso kooxda ka dhisan garoonka Etihad Stadium. Ciyaaryahanka Davies ee difaaca kooxda Bayern Munich ayaa lagu soo waramayaa inay ku loolamayaan saxiixiisa kooxaha Barcelona iyo Manchester United kadib markii labada kooxoodba ay sheegeen inay si aad ay u daneynayaan difaaca dambe ee kooxda Bayern Munich. Davies ayaa si weyn loola xiriirinayaa inuu u dhaqaaqi karo garoonka Santiago maadaama kooxda Real Madrid ay si weyn u daneynayso tan iyo xagaagii hore. Hase yeeshee kooxda Bayern Munich ayaa ka fikiraysa sii haynta ciyaaryahankani dhinaca difaaca ka ciyaara, inkastoo Davies uusan ku qanacsanayn sii joogitaanka garoonka. Ciyaaryahanka difaaca dambe ee kooxda Arsenal ee reer Faransa William Saliba ayaa lagu soo waramayaa inay suuragal tahay inuu u dhaqaaqo kooxda Real Madrid. Arrintaas ayaa walaac xoogan ku haysa taageerayaasha kooxda Arsenal, waxaana la sheegay in kooxda Real Madrid ay si weyn u daneynayso inay xiddigan ay la soo saxiixdaan. Ciyaaryahankan oo heshiiska uu kula joogo kooxda Arsenal ku egyahay sanadka 2026 ayaa lagu soo waramayaa in xiisaha kooxda Real ay u hayso haatan noqday mid sii xoogaystay, waxaana suuragal ah in kooxda Real Madrid ay xiddigani ku iibsato lacag ay ku qanci karto kooxda Arsenal. Sida ay sheegayaan wararku, maamulaha kooxda Manchester City Pep Guardiola ayaa ka xusday kooxda haysata horyaalka Premier League Ingiriiska inay la soo saxiixdaan 2 difaac cusub sanadka soo socda. Man City ayaa ku jirta xaalad adag iyadoo laga badiyay 4 kulan oo xiriir ah ka hor inta aan la aadin ciyaaraha qaramada qaaradda Yurub. Guuldarradaasi waxa ay kala kulmeen kooxaha Tottenham, Bournemouth, Sporting Lisbon iyo kooxda Brighton. Hubinti la'aanta badan ee haatan ka jirta kooxda haysata horyaalka Premier League Ingiriiska xilligan waxa ay wajahaysaa in ka badan 100 dacwadood oo la xiriira jebinta sharciyada maaliyadda qaabka loo maamulay, iyadoo Pep Guardiola qandaraaskiisu u dhacayo sanadka soo socda. Guardiola ayaa si weyn loola xiriirinayay inuu qabto shaqada tababaraha xulka dalka England ka hor inta aanan loo magacaabin tababaraha haatan hogaaminaya Thomas Tuchel. Macalinka kooxda Arsenal Mikel Arteta ayaa aad uga walaacsan xaaladda dhaawacyada haysata kooxda kadib markii difaaca kooxda Arsenal Ben White ugu dhawaaqay in muddo 8 asbuuc uu garoomada ka maqnaan doono. Xiddigan ayaa dhaawac culus ka soo gaaray jilibka, waxaana lagu wadaa in qalin lagu sameeyo maalmaha soo socda. Iyadoo ay sii kordhayaan cadaadiska la saarayo madaxweynaha xiriirka kubadda cagta ee adduunka ee FIFA ayaa waxaa arrin la yaab leh fashilay xiddiga khadka dhexe ee kooxda Bayern Munich Joshua Kimmich. Waxa uu sheegay in 7 kabtan oo qaaradda Yurub ka socda ay qorsheynayeen inay xirtaan calanka qaniisiinta tartankii koobka adduunka 2022 lagu qabtay dalka Qatar. Laakiin Kimmich ayaa sheegay in arrintaasi ay diidmo ka muujisay dowladda Qatar, isla markaasna ay dacwad u gudbisay xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA. Yeeshee waxa uu sheegay in FIFA ay ku hanjabtay cunaqabatayn ka dhana ciyaartoyda xirata calaamadda astaanta u qaniisiinta. Waxa uu sheegay Kimmich in xulka dalka Jarmalka ciyaartoydiisa ay afka gacanta saareen kulankoodii koobka ay ku furteen, sababtuna waxa uu ku sheegay in ay doonayeen in ay gudbiyaan fariin ah in FIFA ay aamusisay kooxaha, balse Kimmich ayaa sheegay inay ku qiyaameeyeen ciyaartoyda xulka qaranka inuu ka mid noqdo, isla markaasna arrintaasi uu muujiyo. Madaxweynaha xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA Infantino ayaa wajahaya cadaadis xoogan oo kaga imaanaya xubnaha maamulka FIFA kadib markii uu soo baxay go'aanka muranka dhaliyay ee lagu siinayo 2034 koobka adduunka martigelintiisa dalka Sacuudi Carabiya. Sacuudi Carabiya ayaa dalabkiisan ku aadan martigelinta loo xaqiijin doonaa 11 bisha Diseembar, xilligaasi oo lagu wado in shir aan caadi ahayn isugu yimaadaan golaha fulinta ee xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA. Infantino waxaa saaran cadaadis si uu u sharaxo go'aamo dhowr ah oo dhowaan muran dhaliyay oo ka yimid FIFA, gaar ahaan siinta xuquuqda martigelinta koobka adduunka ee dalka Sacuudi Carabiya iyadoo aan wax cod ah loo qaadin.